dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa waxa ay qaadacday go'aanadii laga soo saaray shir magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ku qabatay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga magaalada Jowhar Ali Taliye maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaa ka socday kulamo u dhaxeeya wasaaradda maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira waxaana ka soo baxay kulamadaasi go'aamo markaasi isdiidan kulan ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Hirshabeelle ayaa lagu go'aamiyay in go'aankii ka soo baxay shirkii ka socday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya uu yahay baadil isla markaana ay ka soo horjeedaan shirkaas qodobo ka soo baxay waxa saxaafaddu u aqriyay wasiiru dawlaha wasaaradda warfaafinta maamulka Hirshabeelle wasiir Colombo waxaa ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ah warmurtiyeed lagu sheegay in dhammaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay laba maalmood ku lahaayeen magaalada Muqdisho kulan looga shaqeynayay fulinta mashruuc ka jawaabidda xilliga dhow ee xaaladda degdega ah dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay uga qayb gashay shirkaas si niyad wanaag ah iyadoo daneynaysa in si cadaalad ah wax loogu qabto dhammaan dadka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo dhibaatooyinka bani'aadanimo saameeyeen waxaan isku daynay in si niyad sami ah u tilmaamno khaladaadka iyo cadaalad darrada ku jira barnaamijka la soo bandhigay wasaaradda gargaarka ee heer federaalkuna iska indhatirtay abaaraha iyo dhibaatooyinka bani'aadanimo waxay saameeyeen dhammaan waddanka oo dhan waxaana loo baahan yahay in si caam ah loo wajaho waxaa nasiib darro ah in wasaaradda gargaarka ee heer federaal soo bandhigtay barnaamijkan ku salaysan xaaladda dhabta ah ee bani'aadanimo ee waddanka ka jirta iyadoo soo bandhigtay barnaamij lagu takoorayo deegaano qaarkood sababo siyaasadeed iyo cadiifad qabiil darteed haddaba waxay dowlad goboleedka Hirshabeelle cadeynaysaa inaysan la qaadanin go'aamadii ka soo baxay kulankaas iyo arrimaha ku saabsan mashruucaas waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah in aan loo kala eexan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu baaqaynaa deeq-bixiyaasha iyo dhammaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka inay si mas'uuliyiin ah inay mas'uul ka yihiin wixii cawaaqib xumo ah ka yimaada arrintan tixgelinayana mabaadi'da bini'aadanimo ee inaan dhibaato loo kordhin dad awalba taabalaysan do not harm principle waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle inay u gargaaraan walaalahood dhibaataysan dhammaan isku tashadaan si loo xalliyo dhibaatooyinka haysta wabillahi tawfiiq war-saxaafadeedkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli qaar ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya uu ka jiro abaare aad u baasan Hirshabeellena waxay ka mid tahay gobolada dalka Soomaaliya isla markaana abaaraha aad u saameysay Ali Taliye Cabdi Som News TV Jowhar